agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland Mukhtaar Maxamed Cali xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag ayaa kormeer ku tagay shirkadda leedhka Sebco ee magaalada Ceerigaabo waxaana ugu horeyn shirkadda uga warbixiyay gudoomiyaha shirkadda leedhka Sebco ee magaalada Ceerigaabo Maxamuud Axmed Liibaan waxaanu leenahay ku soo dhawaada magaalada Ceerigaabo باوركيدي وأمانتا الشرف نوتا إن النوتي مادان باوركو وحق عنا قصي سيرنتي هيدي لورنجري ديفيد iyo shirkadda Sebco ayaa kala qaybsaday fulintiisa sanadkan ayuu dhamaaday bishii koowaad waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ee gudida khayraadka agaasimaha waaxda macdanta isuduwaha wasaaradda macdanta ee gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiin kale shirkaddan iyo intii ay waxa weeyaan barnaamijkan solarta ay hirgelisay magaalada wax weyn baa iska bedelay oo waxa weeyaan leedhkii oo dadkii u jabnaaday shirkadda Sebco laydin lama qabo oo lama hayo mashruucan oo kale laydin lama qabo oo wadanka Somaliland idin lama qabo magaalo madaxyada wadanku idin lama qabaan runtii waxa weeye wax lagu farxo weeyaan mashruucan ka socda Ceerigaabo mid waan idinku hambalyeelayaa Maxamuudow dadaalka badan ee aad samayseen ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag ahna kusimaha barasaabka Maxamed Khaliif Nuur iyo agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland Mukhtaar Maxamed Cali waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda tamarta macdanta iyo tamarta dhammaanteed ilaa agaasimo guud ilaa wasiir ilaa agaasimo waxeedo tacabka ay shirkaddan Sebco geliyeen Ceerigaabo wasaaraddu say ula shaqaysay iyo say ganacsatooyinka ugu dhiirigelisay ee shirkaddan iska leh waxaan leeyahay horta wasaaraddu aad bay u mahadsan tahay warshaddan Sebco waxaan ugu mahad celinaynaa agaasimo muddadii ay ballaarintan dambe ee leedhka samaysay in ay bulshada gobolku ka faa'iideeyaan waxaynu ugu sugannahay oo joognaa waa xaruntii shirkadda sayidkii ay yaaleen tamarta cusboonaatay laga faa'iideysanayay ee gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceerigaabo oo shirkadda ay maanta la joognaa mashruucan weyne intan leeg loo hirgeliyay marka waxaanu kolley u joognaa waa gobolka howlo badan oo wasaaradda ka mid ah shirkaddani waa shirkadda horta ugu qiimaha jaban marka laga hadlayo xagga flight rate oo waxa weeyaan siday noo sheegeen maamulka iyo report ku hayno 0.6 waa lacag $1 ka yar ayaa dadka xitaa bishii qaar lagu dalacaa halka meelaha kale ama gobolada kale ay flight rate leeyihiin intaa wax ka yar inta ay sameeyaan taasna waa alxamdulillah shacbiga reer Ceerigaabo na waxaan leeyahay wax soo saarka ilaahay wuxuu idisiiyay dhul aad u qurux badan barwaaqo ah wax soo saar ku wanaagsan haddii aynu beeranno aynu warshado samaysano oo khayraadka isticmaalka korontaduna uu idigu bato qiimuhu idiga sii jabaya waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Ceerigaabo